عشق هوين وهرو عدل سرغي بيتي عرشها نوري علي بس وقدي عدل مدام الدير من دكو عودي واحدة وحعين بعين روض الدقي حيسعد شبيني صومالي ذا عاد حولي يقوم عايدن وي أبو سوا كونني عشتك ليا بقوانك ناري وعنا ونكسن إذا الكيمبا ومركلة يمد كلا يوم مقالة بربرة أو صبحا ساكان كسبن هاي مقالة بربرة ومقالة تاريخ وين تاريخ فربضن أو كل الدول له لكن سوى حي جار لتهاي أرنتي جيجا الصومالي ذا ميل كستكاد عضيه هاي علمي يشعيل كيسي أما شعيل كي دحمري علمي إسماعيل ليبان يهودن عبد الله والأول مقالدني تاريخ راسي يا تاريخه كلو فربضن أي جار لتهاي هذا قوبتن إمك أن تهجن هي دركسان وماشي مقالة بربرة وعلم كشغين شري موفد وكشغين شري وهلك كان إمك أن تهجن هي دركسان وحقوقا بودري father of love بودري وحوها Soomaalida marka laga hadlayo qofkii ugu horeeyay ee jacayl ku hadaaqa ama ba wax la yiraahdo jacayl ka hadla Soomaalidii waqtigan nooleed arrintan uu ka hadlayay cilmi boodhari aad ayay la yaabnaayeen waayo ma yaqoon jacaylku waxa uu yahay horena uma arag xoolo la jeclaado mooyaane ma yaqoonin bani aadan la jeclaado taasi waxay ku noqotay dadkii cilmi marka la noolaa fajac iyo makaag waayaabay cilmi qof uu buu jeclaaday madayrkii ma ku dumiyay arrintaasi markii dambe cilmigu la godgalay cilmi suugaan fara badan ayuu ka tiriyay markaasi oo kaga warramay dareenkii iyo jacaylkii iyo kalkacalkii uu qabay markaasi hodan cabdille walwal walow qisadan aan taariikh dhaba laga hayn marka laga hadlayo meesha uu ku aasan yahay cilmi boodhari oo alaanka marka la isku khilaafsan yahay dadka qaar bay dhaabta talaalo ku aasay qaar kale meel kale ay sheegaan sidoo kale waxa la isku maandaafsan yahay علمي هذا مية كلمين أو شيء مية دحمرتي أما هو حاسة ولا رامي دحمرتي سيدا استرتيد أيا قصدني مهمل فربضني وجود شراء أنت يا رحكت الله أنا وحلا قد حلي ضد يوجي ويلك هاي وقت قاس لنا والله سيدا مستعرب عمرك صاحب دولة علمي إسماعيل ليبان يونيكي لورين شريت تباس لبضانين أياها لبضانين مركا مروا بعلمي قرب تاجنا مركاسيرهم يستوي حنو كهلا إنه هي واحد شراء أو ربع مركاسي haddii aynu soo qaadano suugaantii ugu horeysay ee cilmi ku hadaaqay waxa kamid aha niman yahow dharaariye habeen waan dhadhabayaaye dhulku baan xariiqaa siday dhiilay timide sida qaalin dhugu toobay oo geeli wada dhaafay dhalinyaro marraacay kalaan dhaxanta meeraya dhakhtarada la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabee iyana way ugu dheeldheelayaan dhamacdeeda erayadaasi ama suugaantaasi waxay sheegayaan yacni dadkii la noolaa markii ay fahmi waayaan cilmi waxan uu ka hadlaya waxa uu yahay ayuu markaasi suugaan ku soo cabiray iyadoo markaasi labada nin ay saaxiibka haayeen tabaasa iyo Muuse Carab ay markii uu sheegay arrintaasi ay qaateen ee uu suugaan uga cabiray haddaba bal waxaynu doonaynaa inaynu markaa qisada hoos uga sii daadegno oo bal aynu eegno cilmi taariikhdii uu dhashay yacni iyo waxyaabaha kale markaa taariikhda ku duwan ayaynu eegi doonaa داوديال ولي واحد كبر جبنا قصدي علم إسماعيل ليبان وهذا واحد لبر يمكن لا وياك ولا
هذا واحد استدعاء ممكن كمان حافظ موسكا يودي ممكن تكون سي أي حاجة ودي ممكن ورد كذا والله هاي هذا يوم gabadh la yiraahdo Aasha ayuu tagay waxa ku yiraahdeen Aashay waxa kaaga baahan maanta inaad hodan noo soo kaxayso waxay inantii tiri waa hagaag inay soo kaxaynaya way tagtay gurigii hodan bay tagtay waxay tii saaxiib waxaan doonayaa maanta inaad dar ila meedho hodan way soo raacday markii ay soo raacday cilmi uu saxay dadii ayaa la tagtay Muuse Carab iyo way toosiyeen markii toosiyeen salaadii casar ayay u yimaadeen inantii markii u yimaadeen baa inantii tiri imikadaas ay iga baxday marka waa kii lahaa marka galay hurdadu way xudud bal inaan qabaar لأن حدث كتنا مركها مالي ما حكمي ذا وقت سبوا مرايا محدثة بهات كأكيد يعني بهات أيا خوب وين بان داعي خوب كمية داعي علمي خوب كي كموه وين يعني نك الله يلاحظ إنه عربي يتباس لبدو دين كعرين بمحرد دي كلام مركها مقاحدي كلام أي سوق موسى عرب دي بسوق يعني صاحب ولا مدي ويمدو ورنا مرين توقعت والله جركا يقبنا يجي ده خاصة هو عايز دبا يعني السوق هذا المركز ده مو سوق وارن بيور نجمعين هاي تعال بالمو نون وارن ويسكها فيها أيوه يقين مركز صاحب باص يعمل دورين باص وحين ورنيك أنا قبله أيا الله كان قرب بدن نقولنا كقرب بدن وحلي خذ سيلاو قبلها مدحان وقدر وحلي وريا علمي كهر قبلها كهر فضلا قبلها كنا قيستي أضرب أما خطران صوار يغارك يأخذن إنني بحيد إنني بحيد قرية لابتي cilmi Ismaaciil Liibaan oo ku magac dheeraa cilmi buudhari waxa uu ahaa taariikhda Soomaalida qofkii ugu horeeyay ee jacayl ku dhawaaqa markii dambana jacaylkaasi uu godgalay cilmi buudhari waxa uu dhashay 1908 cilmi Ismaaciil Liibaan oo ku magac dheeraa cilmi buudhari waxa uu ahaa taariikhda Soomaalida qofkii ugu horeeyay ee jacayl ku dhawaaqa markii dambana jacaylkaasi uu godgalay cilmi buudhari waxa uu dhashay 1908 tuulada Xayndaable oo koonfur bari kaga beegan magaalada Hargeysa gabadha cilmi jeclaaday waxa la oran jiray Hodan Cabdile Walanwal oo ku nooleed magaalada Berbera magaaladaasi Berbera oo markii dambe cilmi muufiq kaga shaqeyn jiray ayaa jacaylka isaga iyo Hodan dhexmaray uu ka bilaabmay jacaylku waa dareen ruuxi ah oo inta badan isku qaadan lamaanayskaya dareenka lab iyo dhadiga dhexmara waxa uu macaan yahay sida malabka oo kale marka la isla jaan qaado marka uu midkood gaar ku noqdana dacarta isaga ayaa ka qaraadhada labada qofkood doonaba gooraysta waxa marag ma doonaan dhadigu dareenka inta badan qarsado hasaatee sidaasi ka duwan labku dareenka ma qarsado waa muujiya ama uu sheega dhadiga uu jecel yahay leenderiga karka kuleelka ayaa ka keenay cilmi buudhari markii uu kali ku noqday jacaylku waxa uu burqaday toog sugaan ah iyo webiyo murti ah cilmi marba marka kasii dambeysay quruxdiisa muuqiisa iyo awoodiisa oo waayay wiiqmayeen
iyadoo bulshadii la nooleed aanay garanayn waxa haleelay cilmi ay sidaan. cilmi Ismaaciil Liibaan oo ku magac dheeraa Cilmi Boodhari waxa uu ahaa taariikhda Soomaalida qofkii ugu horreeyay ee jacayl ku dhawaaqa, markii dambena jacaylkaasi uu godgalay. Cilmi Boodhari waxa uu dhashay 1908 tuulada Xayndaable oo daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa bal qisadii dhex martay Cilmi iyo Hodan. sidoo kale bal waxaan eegi doonaa abwaan Maxamed Ibraahim Murse Mahdiraawi oo ka hadlay qisadan isagoo laba heesoodna ka sameeyay. bal ay neegna abwaanka iyo wuxuu ka yiri qisadan. waayahay qaybta labaad ee heesta ayaa su-aasha Cilmi Boodhari waa la wada yaqaanaa. waxaanu ahaa ninkii ugu horreeyay Soomaaliyeed u dhintay jacayl ama waxaan caashaqa la yidhaahdo. laba kale oo lamaanaana waa lagu daraayo sayladaa taariikhdoodu tahay oo la odhan jiray anigu kule basaan magacyada u maqlayn muliya iyo ama xuseen ama anigu meecaad baaba yaabaan u maqlay muliya iyo meecaad laba qof oo isu nafbaxay oo aan iyaga qudhooda filayo ilaa haddadan inaan meel laysla dhigin. maxay sheekadoodu ahayd? Cilmi Berbera ayuu ku aasan yahay sanadkii 1971 ayaanu tagnay magaalada Berbera. waa la dhammaa ama heesaaga ragga ah ee caanka ah oo dhammi meesha way marayeen. allahu naxariistay maxamed boogaa marayay, axmed boogaa marayay, darara malaa marayay, shimbir baa marayay, faysal baa marayay, cabdiqays baa marayay, maxamed warsame qaasaale nin la yidhaahdo ayaa marayay, anaa marayay, gabadh la yidhaahdo Sahra Siyaad ayaa meesha maraysay. koox waqtigaa la abuuray oo magaceeda la odhan jiray Barkhad Cas oo magaceedu uu ka soo jeedo ninkii abwaanka ahaa ee la odhan jiray berigii hore Balaayo Cas. ilaahay ha u naxariisto. markaa goor galabnimo aanu Berbera tagnay, dabeedna hodheel baanu ku tegnay. rag baa magaalada iska galay. magaaladiina raggaas waxay u sii dhiibtay ama waxaa sheekada meesha dibaahayd ma jeceshiin inaanu idin soo tusno xabaasha Boodhari. xabaashii Boodhari bay tageen. waxaa ku jiray isla nin la odhan jiray Cabdiraxmaan Xasan oo heesi jiray. ma taqaani Cabdiraxmaan Xasan waa maqasheen soo? ilaahay ha u naxariisto. Cabdiraxmaan. dabeedna rag baa tegay xabaashii Boodhari. anigu maanayn raggii tegay hodheelkan joogay, laakiin ragga meesha tegay waxaa ka mid ahaa Cabdiqays baa ka mid ahaa, maxamed boogaa allah u naxariistay ka mid ahaa, axmed boogaa ka mid ahaa, faysal baa ka mid ahaa. dabeedna xabaashii markay tageen way soo noqdeen. dabeetna hodheelkii bay yimaadeen runtii iyagoo aada u murugaysan. aan idhaahdo malaa galabta waan hubaa in xataa qaarkood ay ooyayeen. dabeedna waxaan weydiiyey maxaa idinku dhac waxaan soo aragnay xabaashii Boodhari. markaysaa yidhahda waxaa igu dhalatayna inaan soo arko waqtigaa habeen bay ahayd haddii alla ka dhigo subaxnimada. subaxdii rag baanu israacnay. cabdiqays baa ku jiray, rag baanu israacnay, cabdiraxmaan xasan baa ku jiray. xabaashii baanu dul tagnay. goor kulul bay ahayd Berberi. wuxuu ku aasayay Batallaale, waa meel xeeba oo aan geedka buucda la yidhahdo mooyaane aan dhir kale lahayn. aadna runtii u kulul. faatixadaa loo maray. markii faatixada loo marayna waxaan anagu yidhi mar haddii maanta xabaashiisii la dul yimi wax intaa dhaafsiisan ayaa malaa loo baahanyay. waxay yidhahdeen waa waqti kulul, gabayada markaa badi baanu tirinaynana waxaanu la doonanaa fadhi iyo jaad runtii. markaynu waxba ma odhan karree galabta markaynu qayilayno ayaynu wixii aynu odhanayno. marka waxaan idhi waxaa ka sii mudan waxa xabaasha dusheeda laga yidhaahdo oon ku adkaystay runtii. waxaan idhi marka anigu wax kastaba aan idhaahdee mar haddaan xabaashii maanta dul joogo waxa xabaasha dusheeda laga yidhaahdo ayuunbaa qiimo lehe idaaya baan ku yidhi. way bay yidhahdeen way dhaqaanoo geed ii dhow aan u malaynu ku dhacayahay iyay fadhiistay waxay halkan ugu sugayna. marka anigu xabaashii baan madaxa kaga fadhiistay. waxbaan raadiyey umana aanu baran waqtiyadaas oo kale iyo halkaas oo kale wax lagu tiriyo runtii. mala waxay tijaabadii koobaad ee sidaa u dhacda. intii hore markaan fadhiyey waxay haddaba anagu sugi kari mayne waan iska sii soconnay markaad soo dhamayso magaaladii noogu kaalay. way tageen. cabaar markay sii socdeen bay haddana isqabteen. raggii maanta wuu wada noolyahay ayay isqabteen. waxay warid marka ninka haddaynu xabaasha dusheeda kaga tagno
miyaynu garan karaa waxa dhici kara marka waxay isku soo qanciyeen bal inay igu soo noqdaan way isku dayin xataa inay sisabaan oo yidhahdaan ninkan ilaah baa kulahaa waa sheeka dhacday haddii ilaahay ka dhigo maaragtay yani inay maaragtay bal marka igu qanciyaan inaanu israacno meesha ka tago waayo waxay aada maaragtay uga yidi diila xumaayeen in halkan oo kale iyo waqtigan oo kale in wax la odhan karo laakiin waxaan aada isugu dayey 4 baydna ha noqotee inaan xabaashaa dusheeda wax ka idhaahdo kadibna heesta yare kooban ayaa muddadii dhowrka saacadood ahayd ee haddii ilaahay karo meesha kulba aada uga dhacayay oo waaban ku qoyayay muddadii dhowrka saacadood aan meesha fadhiyey heestan kooban ayaan helay cilmi sow hoggiisii hindisuhu imuu geyn sorry taa maaha taasi waa tii dambe aan iyagaa markii dambe laba noqday waxay ahayd boqorkay huqiyo ciil hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylku hambaliye salaaniyo hibe iga guddoomo kullay waan hubaayo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku toydee jannadii ma hurudaa hadh qabow ma jiiftaa hoobaan ma gurataa habla xuuran caynaysow kuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraayee reer soo hayaamiya hayin raran ma kulanteen hor ilaahay adig iyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal yani intaan xabaasha tegin 70-kiibaa ilaahay naxariistii jannaha ka warabiyo hodanna ay ku dhimatay aan idhaahdo malaa 67-kiibay ama 68-kiibay ku dhimatay xamar marka xamar baan waqtigaa joogno marka anigu aaskii kamaan qayb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay hodan dhimatay malaa meeshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa le reer soo hayaamiya hayin raran ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideedii ogaa baan leeyahay xaggaa ma ku kulanteen wadkan lama huraaye reer soo hayaamiya hayin raran ma kulanteen hor ilaahay adig iyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal bal maxaan haweenkiiyo dumar ugu hiloobaa ama kula heshiiyaa ugu hagar la-aadaa sawtay hirbeeniyo ku tuseen hilaacee hogol aan biyo lahayn hanfi kuu aroorsheen hirwo kuu garaaceen hungo kuugu baaqeen sawtay ku hawleen ku jareen halbowlaha haadaan ku koriyeen hore kuugu riixeen hogga kuu dabooleen hoos kuugu tuureen sawtay ku heereen ku jareen halbowlaha hengelaha ku saareen gudcur kuu hilaabeen ku dhigeen habaaskee cidla kaaga hoydeen horarkiiyo waraabuhu hilbahaaga jiiteen haadda iyo xuunshadu hambadaada feenteen waxaan ugu hamranayaa hooyaa ka dhalato naaskii habreed baa iga hiilinaye walle hawlahan galo iyo heegantaan dhigo dumar lama hawaysteen ragba ma hungureeyeen hanti lagama dhiibeen guri laguma hoysteen hadalla lama yeesheen anigoo runtii laga yaabo dareenkaasi inuu igu beeri lahaa colaada haween haddana markiiba hooya ay soo qabatay hooyana wanigii shalayta ka sheekaynayay heestii markaan dhameeyey baan qoladii u yeedho geedkii hoos fadhido waxaan dee haddaba waa waajibe aynu ka dul akrino xabaash baanu ka dul akrinayo kadibna waanu isi soo raacno berberaanu ka nimiyo waxaanu burco dabeedna waxaa bal heestii qola reer burco oo maalintaa noo timo nala fadhiday baa layidhi bal heestii ayaa yidhi heestii noo tiriyo waan u tiriyo markii aan tiriyo waxay yidhahdeen dee balaha dira waxaa fiicnaan lahayd haddii aad cilmi boodhari heestaa xabaashiisa aad xabaasha dusheedii ka tirisay malaha inuu isaguna wax kusoo yidhaahdo ayaa qurux badnaan lahayd soogaanta sida loo wadaagaa waa sidaa maogtahay oo had iyo goor dadku qaybtooda ay ku leeyihiinoo iyadaa wax badan dhaliya maogtay matalan heestan jawaabtii cilmi boodhari anigu taasay igaga ekayd laakiin galabtii fadhigii ayaa raggii fadhiya yidhahdeen yani heleen iyagu maaragtay ay yidhahdeen mala waxaa fiicnaan lahayd inuu isaguna soo joogaa dabeedna waan qaatay taladaas dabeedna heestan kale ee kooban oo cilmi uu ku soo hadlayo ayaa dhalatay
marka waxaan ka horreysiiyey ilaa dadku mar haddaanay ta hore maqlin si ay u ogaadaan inaan anigu xabaasha tegey ayaan halkan hordhac intaan u cilmi hadlin aniga horta hordhac yar samaynaya cilmi sow hoggiisii hindisuhu imuu geyn hambaliya salaadiyo heesow umaan dirin halka uu ku nool yahay hanti wuxuu guddoontee hor ilaahay ugu tegey hubisow ismaan odhan hodansow ma weydiin sowanin hoydo ifkataar la haystee kama helin jawaabtii xalay fiid horaadkii sow haatufkiisii hudhudkii uu soo diray gacan haadiskiisii kama halacsan sheedo hurin bay la socotee kama hadhin barbaartii markaa hudhudkii soo diray baan raacay sowmaan horgelin oo hay haata maan geyn dabeedna haybtii hayi kow ma aan odhan wuxuu yidhi halyaygii ama haadda soo faray ku bilaabay heestii ninkan ila hadlaayee ii soo hiloobee hawdkiiyo xabaalaha hiilkaygu keenee hogga iiga yeedhee hambalyada isiiyow hawraarta luuqdiyo habdhaceeda maansada adigaa higaajiye anigana wariga ho waxaa hawli joogtaa ama lagu harraadaa hanad lagu cidhiidhiyaa hanti lagu gumaystaa hoogtada adduunye qofka samir hambaystaa godka kuma hungoobee ifka hadimadiisiyo dhibtu way horrayso mahuraan tan aakhira anigaa ku haysto hogol bay kor joogto onkod iyo hilaac baa dusha iga hadheeyo hara aan gudhayn baan darayaa hadhuubko hoobaan bislaataan habaqli ii dhex jooga ishu halacsanaysaa guri hoos qabow bay halabtaydu taallaa nafta waxaan u habayaa sida hooyo wiilkeed naasaa horaadka iyo haaneedka siisiyo nirig hootanuugo hodan iyo jacaylkeed dhani igama hayso habla xuural caynaan haasaawiyaayo huwanahay taftoodoo lagu yidhi u heeso hugunkaad maqlaysiyo hoobaydu waa geel igu soo hormarayo hawl bay sugaysay haya nabad walaalo markaa geela soo hormaraya wax waralcayntii fari waxaa maaragtay ninka malaa intii dadka loogu talagalay ka badan baa isaga la siiyo ya markaa taasuu ku haftay marka waxaan jecel labadaa su-aalood inaan intaa maaragtay daawadayaal waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii qisadii jacaylka ahayd ee kaga hadlaynay cilmi iyo hodan u dhexaysay qisada waxaynu kasoo tabinaynay magaalada berbera intaynu barnaamijkaas iyo barnaamijyo lamid ah ku kulmi doonana waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ammaano alla iyo kulan dambe oo xiisa